xukuumadda Somaliland go'aanka waxay ku joojisay dadka Soomaaliya ee ka imanaya Yemen ee qaxootiga oo kaliya markabkii 11aad ee sida qaxoonti ka soo cararay dalku dagaaladu ka dhacayaan ee Yemen ayaa maanta soo gaaray marsada caalamiga ee magaalada Berbera qaxoontigan oo saarnaa markab lagu magacaabo Enfi Asaadadiin ayaa tiradoodu dhanta 41 qof oo isugu jira dad u dhashay Somaliland iyo Soomaaliya iyo dalku dagaalada ka socdaan ee Yemen markabkan sida qaxoontiga ka soo cararay dalka Yemen ayaa markii uu ku soo xidhay takada magaalada Berbera waxa ismaandhaaf ka dhex qarxay maareeya ku xigeenka takada Berbera Umar Abubakar Jaamac iyo barasaabka gobolka Saaxil Mudane Fahmi Cabdi Bidaar oo isku maandhaafay dejinta qaxoontiga iyagoo markii dambe barasaabka gobolka Saaxil uu qoray warqad lagu dejinayo qaxoontigan waxaana murankaas u dhacay sida tan sideed Yemeniina iyo inta kale hal qoys oo Soomaaliya iyo inta kale oo Somaliland markii loo lagu arko oo reer Berbera iyo isku jira reerkiisa runtii qoyska Soomaaliya ku soo dhaxdoontay markii hore waxa lagu soo daayay inuu yahay mataqaanaa Somaliland markii dambe ayaan imkaan fuula ayaan ogaanay saadarteed waxa weeyaan amarka wasiirada waxa ku soo deeyay qoyskiina inay dadka soo raacaan sidii loo joojiyay weeyaan joojintu assalaamu calaykum dadkii barakacayaasha ee soo gaaray marsada caalamiga ee takada Berbera oo wax ka weydiinay xaaladooda ayaa waxay u hadlaysaa tan Soomaaliya maxaa loo cadabaysan caruur yaraan sidana markabka ku faraqay wali waa laga tawadii rafaad nabadii ama nacaliya bas insan rabaaniga ana warka Soomaaliya waxa ay saaqay waxaan noo kala saaraysaa koonfur Soomaaliya kulli waa wada Soomaali hadii ka saarta ana warka Soomaaliya waxa ay Soomaaliya ana ma soo inta saddex haween miya ma qaana ku jirna caruurta waa naga xanuunsantahay meeshan waxa digaysan ana waa haysanaa أنا سومالي أنا شو القدام كله إنه سومالي. على يقول دي أنا كده مركب. أنا سومالي كافر حتى وما وصعوا كافر سومالي شيء. وعن رب رعية رجالسنا عيال كفر. عن عصنا يا مدام سومالي أنا ولا نهاي إن اللي تجيو أو عن بلنا السنة. كتبنا عنه وعن مال رأسنا ما على قلنا دي وإحنا قابلين سجين حتى. دولن هيئتنا قابل شادين سجين معاونة هدين سجين. أنا قاعد تبرنا بالأرض أنا بتجي. ليه عرورة وصع. oo hablo badan wallahi baa maray oo billahi baa maray hadii wadankayga la iga dijiyo markabkaan saarana aniga ciyaalka badan isku shuweena dhimasho wallahi dhimasho ma dhaantaday Soomaalina diidan tahay anagana nafteena inaan go'na diyaar u nahay hada ayamana ka soo carnay xabad wadankeena hooya u nimid waxaan wataa kooyta nafraana sagaal caruuraan wadnaa hal codsanaysaa rabta waxaan codsanayaa wadankeena nabad soo degno marda maana isku soo wada duuba qaxoontiga maanta soo gaaray takada magaalada Berbera ayaa ku soo beegmaya xilli maraakiib iyo dooniyo badan sida qaxoonti ka soo barakacaya dalka ay ku soo jiraan badaha lana filayo in takada Berbera soo gaalan saacadaha soo socda waxaana la sheegay in qaxoontiga ay maraakiibtu soo qaadan ka hor intii aanay xukuumadda Somaliland aanay soo saarin go'aan ku mamnuuca qaxoontiga dalka soo galaya waa Sadiq Arab Salaban difeeshka madaxa bannaan ee Space Channel magaalada Berbera